بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عصريغا maanta noolnahay qarniga 21aad ma jirtaa shakhsi dhihi karo aniga mobile ma isticmaalo muuqaalkeena maanta waxaan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka laga dhaxlo isticmaalka xad-dhaafka ee mobilka iyo sida lagu xalin karo sidaan wada ognahay isticmaalka mobilka waa qayb muhiim ah ee ka mid ah nolol maalmeedka dadka oo dhan laakiin haddii si xad dhaaf ah loo isticmaalo waxaa ka dhasha dhibaatooyin badan sababtoo ah wax walba xadkooda la dhaafiyo waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin aad u badan sidaa darteed isticmaalka xad dhaafka ee mobilka waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin caafimaad aadan malaysan karin khaasatan dhibaato caafimaad dhanka jirka ah dhibaato caafimaad dhanka maskaxda ah iyo sidoo kale dhibaato dhanka bulshada ah saddexdan qayb aan soo sheegnay waa soo koobayna si uusan muuqaalka noogu dheeraan kow dhibaatada caafimaad ee jirka daraasaad la sameeyay shakhsiga markuu mobilka saacado badan isticmaalo waxay si toos ah u saamaysaa caafimaadka jirkiisa khaasatan xubnaha ugu muhiimsan ee jirka sida indhaha qoorta iyo maskaxda haddaan ka hadalno dhibaatada indhaha isticmaalka mobilka waqtiga dheer ama saacado badan inagoo si toos ah u eegayno shaashada mobilka sida inaan muuqaal ka fiirsano ama inaan baraha bulshada aan ku jirno sida facebooka tiktoka youtubeka instagramka telegramka whatsappka anagoo aan waxba ka faa'iideynin aqoonna aan ka kororsanaynin waxay nagu keeni kartaa dhibaatooyin la xiriira dhanka caafimaadka indhaha sida inay indhaha na daalaan ama na qalalaan indhaha inay na gaduutaan sidoo kale inay aragtidiina daciifto ugu dambeyn takhaatiirtu inay nagu dhahaan waxaad u baahan tahay inaad qalin indhahaan marto dhibaatadaas oo dhan waxaa sababa mobilka aan sida joogtada u isticmaalno saacadaha badan intaas haddaan uga baxno dhibaatada indhaha waxaan fiirin haddana dhibaatada dhanka murqaha qoorta dad badan ayaa isticmaala mobilka iyagoo xabad u seexda kadibna madaxa hoos u soo raariciya kuwa kaloo waxaa jira iyagoo taagan ama fadhiya haddana qoortooda hoos u soo raariciya si ay mobilka u isticmaalaan qababka noocaas oo kale ah waxay culays daran saartaa murqaha qoorta waxayna qofka u keeni kartaa xanuun dhanka qoorta ah waxaana loo yaqaanaa textneck sidoo kale isticmaalka mobilka xad-dhaafka ah wuxuu keenaa hurdo la'aan dad badan ayaa caado ka dhigta inay isticmaalaan mobilka daqiiqado ka hor intaysa seexan laakiin cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in isticmaalka mobilka xilliyada shakhsiga uu isku diyaarinayo inuu hurdo ay maskaxda ka dhigto mid firfircoon taasoo yareyn karta awoodda qofka uu ku seexan lahaa xilliga loogu talgalay waxaa kaloo la sheegaa in dadka isticmaala mobilka ka hor inta aysan hurdin ay caadi ahaan u baahan yihiin waqti dheer si ay u seexdaan cagsiga dadkaan mobilka isticmaalin xilliga ay seexanayaan sidoo kale daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in iftiinka ka soo baxa mobilka uu carqaladeeyo soo saarista hormoonka hurdada taasoo keenta hurdo la'aan ama hurdo xumo sida adigoo hurda haddana inay maskaxdaada shaqayso subaxii markaad soo toostana waxaad dareemaysaa inaad xali oo dhan aad soo jeeday ama xal oo dhan aadan seexan waxaad dareemaysaa daal fara badan madax xanuun daran iyo kor xanuun oo zaa'id ah sidaa darteed waxaa muhiim ah in shakhsigu u xadido isticmaalka mobilka gaar ahaan xilliguu isku diyaarinayo inuu seexdo takhaatiirtu waxay talo ahaan u soo jeediyaan in ugu yaraan 30 daqiiqo ka hor hurdada aan shakhsiga isticmaalin mobil ama wax walba quseeya tiknoolajiyada si shakhsiga uu helo hurdo caafimaad leh intaas aan ugu baxno dhibaatooyinka caafimaad dhanka jirka haddana waxaan ka hadli doonaa dhibaatada caafimaad ee maskaxda isticmaalka xad-dhaafka ee mobilka wuxuu saameyn xun ku yeeshaa caafimaadka maskaxda ee aadanaha gaar ahaan shakhsiga marka uu saacado fara badan isticmaalo mobilka inkastoo daraasaadka caafimaadka ay weli baaritaano ku hayaan saameynta uu leeyahay shucaaca mobilka ka soo baxa haddana waxaa jira walaac ku aadan in shucaaca ama iftiinkaas ka soo baxa mobilka uu kordhiyo khatarta kansarka gaar ahaan kansarka maskaxda sidaa darteed iska ilaali inaad mobilka isticmaasho saacado fara badan sidoo kale markaad mobilka isticmaalayso waxaad iska yaraysaa iftiinka mobilka ka soo baxa si aad ugu badbaado khatarahaas oo dhan dhibaatooyinka kale caafimaad uu leeyahay mobilka waxaa ka mid ah la qabsashada mobilka shakhsiga inuu ku noqdo mobilka mudmin kelimada mudmin waa kelimad carabi ah waxaana loola jeedaa shakhsiga inuu mobilka la qabsado taasoo keenaysa inuu daqiiqad wax ka yar xitaa uusan ka ahaan karin mobilkiisa arrintaasna waxaa ka dhalan karta xaalad caafimaad daro aan caadi ahayn shakhsiga mar waliba wuxuu ka cabsi qabaa inuu mobilkiisa waayo ama uu ka maqnaado mobilka saacado kooban haddii shakhsigaas uu waayo mobilkiisa daqiiqado yar wuxuu dareemayaa kalsooni daro iyo cabsi daran taasoo keeni karta in nafsadiisa halis ay u gasho dhibaatooyinka kale oo laga dhaxlo in mobilka si xad-dhaaf ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah hoos u dhaca waxqabadka shakhsiga isticmaalka xad-dhaafka ah ee mobilka wuxuu saameyn xun ku yeeshaa waxbarashada shakhsiga wuxuuna daciifiyaa maskaxda shakhsiga
waxaad arkaysaa shakhsi waxbarashada toob ku ahaa oo aad ugu fiicnaa muddo markuu joogto isticmaalka moobilka inay waxbarashadiisa hoos u dhacayso wuxuuna ku soo baxaa shakhsi caajis badan wax akhriska neceb garaadkiisana hooseeya waxaa la mid ah shakhsiga howlkarka ah ee shaqadiisa si wacan u qabsan jiray marka uu joogto isticmaalka moobilka saacado badan muddo kadib waxaa ku dhaca isbeddel muuqda wuxuuna noqonaa shakhsi aan shaqadiisa qabsan karin waxaana hoos u dhaca waxqabadkiisa arrintaas oo dhanna waxaa u sababa joogtaynta isticmaalka moobilka saacado badan khaasatan shakhsiga marka uu u adeegsanayo waxyaabo aan asaga waxba u anfacayn sidoo kale dhibaatooyinka laga qaado in moobilka la joogteeyo saacado badan waxaa ka mid ah welwel iyo walbahaar qofka oo si joogta u isticmaala moobilka gaar ahaan social mediyaha ama shabakadaha bulshada wuxuu nugul yahay inuu dareemo walaac badan iyo walbahaar joogta ah sababta ugu weyn waxay tahay in dadka isticmaala social mediyaha gaar ahaan dadka lacagaha ka sameeya inay isbarbardhig ku sameeyaan noloshooda iyo midda dadka kale taasoo keenta inuu shakhsiga niyad jabo kalsoonidiisana yaraato intaas haddaan ugu baxno saamaynta caafimaadka maskaxda waxaan u gudbaynaa saamaynta la dhaqanka bulshada moobilka wuxuu saameyn ku leeyahay dhaqanka bulshada guud ahaan shakhsiga moobilka si xad dhaafa u isticmaala wuxuu ka go'aa bulshada oo dhan wuxuuna noqdaa shakhsi go'doon ku jira arrintaasina waxay ku keenaysaa inuu dad kale dhaqmi waayo khaasatan qoyskiisa waxaana xumaada xiriirka uu dadka kale la lahaa isticmaalka moobilka si joogtada ah saacado badan wuxuu carqaladeeyaa iska warqabka shakhsiga iyo bulshada uu la nool yahay sidoo kale isticmaalka joogtada ee moobilka waxaa laga dhaxlaa waxyeelo dhaqan xumo ah maanta markaan fiirino baraha bulshada dhalinyarta inta badan waxay u janjeeraan dhaqamada aan wanaagsanayn waxay aad u jecel yihiin waxyaabaha maalayacniga ah ee aan wax faa'iido ah u lahayn waqtigooda inta badan waxay ku lumiyaan waxyaabahaas halka dhalinyarta jecel cilmiga iyo waxbarashada ay aad u yar yihiin isticmaalka moobilka saacado badan sidoo kale wuxuu saameyn ku yeeshay carruurteena wakhtiga la jooga carruurta yaryar iyo dadka waaweyn si isku mid ay moobiladu isticmaalaan sidaa darteed carruurta si joogtada u isticmaasha moobilka waxay ka dhaxlaan dhibaatooyin badan sida dhibaato xagga waxbarashada ah carruurta aadka u isticmaala moobilka ayaa u nugul inay hoos u dhacdo heerka waxbarashadooda maadaama moobilka uu soo jiido dareenkooda oo dhan halkii ay wax ka akhrin lahaayeen waxay ka doorbidayaan inay ku mashquulaan game tiktok iyo youtube iyo waxyaabaha la midka ah waxay iska ina tiraan howlaha muhiimka ee u yaala ugu dambeyn waxay noqdaan kuwa meel cidlaa kusoo dhaca sidoo kale isticmaalka badan ee moobilka maskaxdooda wuxuu gaarsiiyaa dhaawacyo daran haddaan fiirin dhibaatooyinka caafimaadka ee maskaxda ee moobilka u gaarsiiya carruurta yaryar carruurta sida xaddaafka u isticmaasha moobilka waxay u nugul yihiin inay ku dhacaan dhibaatooyin xagga caafimaadka maskaxda sida culays xagga fikirka ah culays xagga waxbarashada ah sidoo kale inay fahmi waayaan casharadooda iyo niyadjab inuu ku dhaco gaar ahaan markay la kulmaan dhibaatooyin dhanka internetka ah waxaad arkaysaa inay aad u murugsan yihiin marka ay waayaan internet ama ay ka dhammaato lacagta internetka sidoo kale waxaa bata xanaaqooda sababtoo ah ma yaqaanaan waxaanayn moobilkaas inta badan waqtigooda moobilkaas ayay la qaataan marka waxaa ku adkaatay inay la dhaqmaan dadka kale waxaan soo gaarnay muhiimadda mawduuceena dhibaato walboo jirto waxay leedahay xal waxaan ka hadlaynaa xalka lagu bixi lahaa dhibaatooyinka uu leeyahay moobilka in si xad dhaaf ah loo isticmaalo waxaa jira xal fudud xal sahlan laakiin u baahan in la joogteeyo si loogu hortago dhibaatooyinkaas oo dhan ama dhibaatooyinka ka dhalata isticmaalka xad-dhaafka ee moobilka waxaa habboon in la qaado oo lagu dhaqmo tallaabooyinka soo socda 1 waqti u yeel isticmaalka moobilka waxaa muhiim ah in qofka uu xadido inta waqti uu ku bixinayo isticmaalka moobilka saacad 2 saacad 3 saacad 4 saacad inuu xadido si uu xadido waqtiga uu ku bixinayo moobilka waxaa qasaba inuu sameysto jadwal uu ku dhaqmayo sida inuu sameysto jadwal ah waqti uu cibaadaysanayo waqti waxbarasho waqti shaqo waqti uu la qaadanayo qoyskiisa iyo asxaabtiisa waqti hurdo iyo waqti moobilka uu isticmaalayo si uu uga faa'iidaysto waxyaabaha wanaagsan kaasi wuxuu ahaa xalkii koobaad xalka labaad habeenkii markaad rabto inaad seexato moobilka iska fogey tusaale ahaan waxaad qorshaysay inaad seexato 3 saac habeenimo moobilka waxaad iska xaraysaa 2 saac habeenimo markay tahay si uusan hurdada kaaga qasin 3 ama xalka saddexaad subaxii markaad soo toosto isku day inaadan moobilka hore ka raadin marka hore aad soo kacdo ducayso oo waxaad dhahdaa alxamdulilaahi alladii axyaana bacdama amaatana wa ilayhi nushuur kadibna qubayso salaada fajarka ama salaada subaxa jamaaca kusoo tuko adkaaru sabax akhriso quraan akhriso nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salli allahuma salli wasallim calayh subaxaaga wuxuu ku noqon doonaa subax khayraysan subax barakaysan subax barwaaqaysan maalintaas oo dhanna khayr ayaad ku dhammaysan doontaa insha allahu tacaala xalka afraad isticmaal barnaamijyada wanaagsan ee waxtarka u leh nafsadaada
markaad moobilka isticmaalayso isku day inaad si saxan u isticmaasho. Micnaha saan wada ognahay social media waxaa ku jira barnaamijyo wanaagsan oo aad wax badan ka faa'iidi karto iyo barnaamijyo wanaagsaneen aan waxba ka faa'iideynin oo waqtiga oo kaliya ka luminayo. Marka waxaad isku daydaa inaad ka faa'iideysato barnaamijyada wanaagsan ee aad wax ka faa'iideyso. midna xusuusnow adigoo moobilka u isticmaalaya barnaamijyo wanaagsan haddana waqti go'an u yeel oo waqti badan ku bixin isticmaalka moobilka sababtoo ah waxaad ka dhaxli kartaa dhibaatooyin xagga caafimaadka ah. Xalka shanaad isku day inaad ka maarmi karto moobilkaaga saacado badan. In shakhsigu uu ka maarmo moobilkiisa saacado badan aad ayay u adag tahay saan wada ognahay, laakiin waa wax suurtogal ah. Waa arrin la samayn karo haddii shakhsigu la yimaado go'aan adag. Tusaale, waxaad samayn kartaa inaad moobilkaaga aad u dhiibato waalidka ama walaalka aadna ku dhahdo moobilkayga waxaad siisaa 3 saac kadib. Haddii aan 3 saac ka hor ku imaado ha isiinin ilaa ay 3 saac ka dhamaanayso. arrintan waxay ku noqon kartaa towbar inaad moobilka aad ka maaranto muddo kadib. sidaas sidii aad ku yaraaso isticmaalka moobilka waxaad heli doontaa waqti badan oo aad ku cibaadaysato, waqti badan oo aad wax ku barato iyo waqti badan oo aad ku shaqaysato. waxaadna noqon doontaa shakhsi dhan walba ka hormarsan insha allahu tacaala. xalka lixaad wax akhriska badi. marka aad buugaagta ka dhigato saaxiib oo aad waqtigaaga intiisa badan geliso wax akhriska waxaa kuu siyaadaya garaadkaaga, waxaadna waqti u weynaysaa waxyaabaha maalayacniga ah. fokuskaagana waxaad saaraysaa horumarkaaga iyo sidaad ku xaqiijin lahayd ahdaafta aad nolosha ka leedahay. xalka toddobaad sameey jimicsi. in qofka uu sameeyo jimicsi joogto ah waxay ka saacidaysaa inuu noqdo shakhsi firfircoon kuna fiican dhan walba. sidoo kale waxaa meesha ka baxaya waqtigaad ku isticmaali lahayd moobilka. gebagabadii sidaan hore soo sheegnay isticmaalka xad-dhaafka ee moobilka wuxuu leeyahay dhibaatooyin fara badan oo saameyn ku leh caafimaadka aadanaha iyo sidoo kale la dhaqanka bulshada. haddaba haddii shakhsiga si taxadar leh u marayo isticmaalka tiknoolajiyadda khaasatan moobilka waqti go'ana uu yeelo wuxuu nafsadiisa gaarsiin karaa heer sare insha allahu tacaala. assalaamu calaykum.